jaamacadda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda cilmiga bulshada ayaa soo kordhisay barashada daraasaadka sare ee takhasusaadka xiriirka caalamiga ah iyo cilmiga siyaasadda waxaana munaasabadda daafurka ka soo qayb galay maamulka jaamacadda ummadda barayaal sare marti sharaf ka socotay maxadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya arday iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa ka hadlay mid ka mid ah ardayda baranaysa takhasusaadka heerka labaad ee jaamacadda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan daafurka isla markaasna aan qayb ka noqdo ardayda dhiganaysa School of IR and Diplomacy takhasusaadka heerka labaad ee wasaaradda shahaadada waxbarashada ee jaamacadda runtii waa course aan sugaynay muddo badan in jaamacaddu ay bilaawdo waan ugu mahadcelinaynaa dhinka kulliyadda waqtigii faraha badnaa uu galiyay in darajada heerka labaad ee Arts and Social Science-ka ay jaamacaddu soo kordhiso labadan kulliyadood ee ah Political Science iyo IR waxaan rajaynaynaa culumta kala duwan ee siyaasadda in jaamacaddu iyaduna dib u soo daafuri doonto runtii hormuud xigeenka kulliyadda cilmiga bulshada Professor Umar Cabdi ayaa faahfaahiyay heerkii ay soo martay furitaanka heerka labaad ee shahaadada takhasusaadka dhanka kale Professor Cabdi Shira Warsame oo ka socday dugsiga diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in ay ardayda Soomaaliyeed bartaan takhasusaadka la xiriira arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda barnaamijku waxaan soo wadnay muddo 2 sano haddaan bilaawno maaha maalin marxaladu soo maray manhajka uu ka kooban yahayna manhaj anaga aan hindisna maaha hindis xageena ka yimid maaha waa manhaj laga qaato regionalka aan ku noolnahay iyo dunida inteeda kale waa soo daraasaynay waxaan u aragnay markii aan la fariisanay khubarada jaamacadda wax ka dhigtay gaar ahaan qayb siyaasadda markaan wareegii koowaad iyo labaad iyo saddexaad markaan marsiinay waxaan isla garanay maadooyinkan inay noqon karaan maadooyin u qalma ardayga soo doonanaya masterka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed labada kulliyadood labada qaybood waxaa garan kara labada fakulti waxay tarayaan qofka diblomaasiyadda ka soo shaqeeya dad soo baxay oo wax soo bartay oo tababaro la siiyey baa in wax la qaybsan dibadda lagu bedelaya ama markaad wasaaradda arrimaha dibadda joogto miiska la fariisanaysa marka waa wax fiican wasaaradda arrimaha dibaddana waxaan qiyaasayaa inay aad u soo dhaweyn doonto hormuudka kulliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Cabdiqaadir Maxamed Dhicisow oo daahfuray labada takhasus ee daraasaadka sare ayaa sheegay in ay ardaydani ku qaadan doonaan tababarka dugsiga diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya runtii waa maalin taariikhi waxaan rabaa inaan maanta si official ah u weydiin anuu hadhow heshiis dambe aan geli doono in kulliyadda iyo dugsiga diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda MOU inay qaataan si ay u noqdaan meesha internshipka ku qaadan lahayd ardada ayagaa masterka iyo kuwa undergraduate-kaba inta waxaan u baahanahay intii meel walba waxay leedahay line minister inaan noo noqotaan taawaro insha Allah taala munaasabadan aan iskugu nimay ujeedadiisu ah in la daafuro anaga ku hadlaya gudoomiyaha magaca gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan ku dhawaaqayaa in course-kaas inuu noo daafuro yahay noo information Abdulaziz Megaag telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho